hay'adda SES ee wada mashruuca Bichi ee lagu xidhayo biyo xidheenada ee ka socota dalka Jarmalka isla markaasina kaashanaysa wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland iyo maamulka gobolka Gabiley ayaa waxay maanta si rasmi ah heshiis ula saxiixatay mas'uuliyiin ka socday deegaanada ay hay'adda mashruuca Bichi ka wado taasi oo lagu fulinayo deegaanada geeda beera Taysa Lafta Boqor waxaana madasha uu heshiiskani ka dhacay goob joog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar barsaab ku-xigeenka gobolka Gabiley علي عبد الله علي عسى وحنا ugu heshiiskani faahfaahin ka bixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Somaliland iyo sidoo kale maamulka gobolka iyo ka degmada mashruucan laga fulinayo Lafta Boqor iyo Taysa iyo geeda beera wajigiisii koowaad wasaaradda beeraha iyo bulshadii wada saxiixeen waana soo noqonayaa sababtoo waxay tahay wacyigelin waxa weeyaan waa dadku inay ogaadaan waxa socda waa dhiirigelin waa inay bulshadu u diyaar garoodo wax soo saarka marka mashruucan oo saddex muxuu ahaa ilaaladood oo halka biyo ka imanayaan shaqadii lagu bilaabayo wajigeedii koowaad taasoo bulshadu ay fulinayso iyo wasaaraddu dawladda Jarmalka oo mahadnaqaynaa iyada maalgelisay mashruucan oo soo marinaysa muxuu ahaa wasaaradda beeraha SES oo wasaaradda wakiilkeena ay fulinayso qaybta wajiga koowaad bulshadaan kala hadlaynay waxay qabanayaan sida loo shaqeynayo inta meelood la xidhayo xirfadda sida loo sameeyo taasoo ay ku wada socdo sida mashruuca loo fuliyaa odayaashana aad baan ugu mahadnaqayaa bulshada saddexda tuulo inta kale warka gaadhin halkan uu ka gaari doonaa wixii xisbiga kulmiye ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hormoodka ku ahaa lagu doortay inaynu wax soo saarka kordhino biyaha qabano dadka lagu soo jeediyo tacabka aad iyo aad baan u mahadsantiin heshiiskiina oo saxiixnay waxaan halkan maanta goobjoog ka nahay mashruuca ay fulinayso hay'adda Jarmalka ee ay SES ay wasaaradda beeraha soo marisay oo lagu magacaabo Bichi mashruucaasi oo muddo laga soo shaqeynayay ahna mashruuc waxtar weyn noole saddexda tuulo Boqor Taysa iyo geeda beera oo marka ugu horeysa tijaabada la qaatay waxaan filayaa waa saddexda meelood waxay ka mid yihiin dhulka ugu daran ee biyaha halka ka dhaca ay badda galaan kuwaas baa la doonayaa in la qabto oo mustaqbalka mashruucaasi ilaa dhamaadkiisa aanay jiri doonin insha Allah biyo badda inaga tagaa waajibaad bay leeyihiin wasaaradda iyo hay'addu iyagoo isku lamaan waajibaadna waxa la dadka beesha saddexda beelood oo laga doonayo annaguna marxaati ayaanu kaga nahay maamul ahaan heer gobol iyo heer degmo oo dhinac kasta inuu waajibaadkii heshiiska la kala saxeexday uu fuliyo insha Allah ta'ala ka rajaynana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda beeraha oo matalaysa xukuumadda Somaliland oo ahaan mashruuca qiimaha leh ay gobolka naga fulinayaan iyo dawladda Jarmalka oo mashruuca maalgelinaysa waxaan rajaynaynaa dadka deegaanka oo mar labaad iyo mar saddexaad ku adkeeyna in mashruuca ka faa'iideystaan tuulo Lafta Boqor iyo geeda beera iyo Taysa waxaanu halkan anagu miyirkeega iyo maankeyga qabna ku saxeexnay heshiis saddexda tuulo mashruuca laga fulinayo si kastaba ha ahaatee mashruuca Bichi ee biyo xidheenada ayaa noqonaya mashruuc faa'iido badan u leh shacabweynaha ku dhaqan deegaanada ku tirsan gobolka Gabiley waayaan la xati warbaahinta qaranka magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley.